وفدي مدحوينه ku-xigeenka Somaliland Engineer Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ee socdaalka shaqo 3 maalmood qaatay ku joogay magaalada Boorama ayaa maanta waxa uu madaxweyne ku-xigeenka qada sharaf ugu sameeyay hotelka Rays ee magaalada Boorama madaxda dhaqanka ee gobolka Awdal ahmiyada qada sharaftan waxay ahayd sidii loo shaacin lahaa shir balaaran oo madaxweyne ku-xigeenka Somaliland iyo wafdigiisa ay qamiistii shalay la yeesheen 36 xubnood oo laga soo kala xulay 3 beelood ee gobolka Dega taasoo lagu gorfeynaya soo afjarida khilaafka xagga dhaqanka ah ee taagnaa barasaabka gobolka Awdal Axmed Xadi Sidci oo madashan qada sharafta ugu horeen ka hadlay ayaa waxa uu ku adkeeyay hogaamiyaasha dhaqanka ee gobolkan inay amniga horumarka iyo isdhexgalka bulshada ku dadaalaan rag wuxuu ku heshiyo oo ka doodo oo la isku khilaafo aakhirka meel la isku geeyo gunaanadkaasi ma taalo wax ka dambeeya waxa weeyaan kaasaa loo difaacayaa كان يقول شيء إن مدحوينه ku-xigeenka hortiisa kaga heshiinay ee aan ku garnaqsanay kaasi dabafuriyo male Boorama waxa weeyaan McNamara oo Somaliland oo halkii ay ka dhalatay Somaliland halkii ka dhalatay runtii maalintan halkii loo wareegay waxa balan qaaday inaan halka ka dhiso taaladii nabadda wasiirka duulista iyo hawada Somaliland Maxamuud Xaashi Cabdi oo isna madashan ka hadlay ayaa waxa uu si weyn ula dardaarmay hogaamiyaasha dhaqanka ee gobolkan wixii xalay soo qaadatay ee wanaagaha ee walaaltinimaha ee gacantooyaha ee garowshiyaha ee gudoonaha yaan la boqoni yaan laga noqon meel biyo jooga waa dhaqanko haddii wax kala qawado oo wax kala tirsado xaaje dhexla dhigo la isu garaabo la iska dhaaliyo wixii dhacay guddoonkeedu wuxuu ahaa in arrinkaa ugaaska aad meel iska wada taagtaan meel u baxdaan u xeer samaysataan u xoolabadsataan idinkoo wada jiraaska ugaaskaa wada gelbisaan aad meel qura ku socotaan arrinku saasu ah markhaati ilaahay waa maxarikaa أمانك يودي شركة أمتها وواحد دولتنا ينتمينيسو wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Nuur Caraale Duur oo isna gabagabadii munaasabadan ka hadlay waxa uu shaaciyay natiijadii ka soo baxday kulamadii lagu soo afjarayay khilaafka xagga dhaqanka ah ee gobolkan muddo ka taagnaa walaalnimo iyo midnimo iyo israac iyo wanaag shaydaan u baahidantiisu intahay in ummaddu wanaag iyo walaalnimo waxa dhimantan ay qodaxda iska gurto inay inta dhiman buuxsato inay midnimo wada gaadhaabaan codsanayna waxaanu soo jeedinaynaa mas-uuliyiinta reeraha kala geynaya wallaahi maaha bolosiga xukuumad guul baynu wada joognaa taladaa raggii shalay loo dhiibay ee dhulka loo dhigay ee labada suldaan Cabdiraxmaan Dhawal iyo Ibraahim Jaamac Samatar u horeeya sideedii haw qaada Sultan Saleeman raggu u horeeyo ee shalay talada dhigay yana halkeedii haw daaya wixii ka dambeeya annagu maragintaasaan uqani xukuumad baanu nahay xukuumaddii baanu ka socnay ilaa madaxweyne ku-xigeen nin unbaa maanta naga maha wasiir nooma maqnaa oo madaxweyne ku-xigeen nooma maqnaa oo mas-uuliyiinimo maqnaa madaxweyne qarankunba wax naga sarreeya maqan annagu taladanu geynaynaa intaa wixii ka duwan ciday keenta inay gardarantay baanu qaaday intaa wixii ka duwan cidda la timaada gardarradaanu saaraynaa waxaanu leenahay gardarrada halkaa ku jirta waka intaanka iyo xukuumad baanu nahay ciddii aanu u aragna inay gardarantay dee taladaydu waa ka baydhaysa walaalayaalow midnimaanu doonaynaa midnimadii shalay a qaadatee ha ka saarina maqaar bay lahayd ha ka saarina sharaf bay lahayd ha ka qaadina wanaag bay lahayd halkeedii u daaya waxaan ku soo xidhayaa shalaynu wada hadal shalaynu ka naqsanay muddo badan baynu u kala fadnay madasha